sidoo ku baxay magaca gobolka Hiiraan sida la wada ogyahay gobolka Hiiraan waxa uu ka mid yahay 8 gobol oo ka koobnaa wadanka Soomaaliya xilliga ay haysteen wadanka gumeystiyaasha Talyaaniga iyo Ingiriiska iyo waliba dawladihii ugu horeeyay u yeeshay wadanka Soomaaliya magaca Hiiraan waxa uu ahaa magac soo jireen ah oo loo yaqaan dhulka barwaaqada ee ku yaala bartamaha dalka Soomaaliya xilli laga jooga kumanaan sano sida la wada ogyahay gobolka Hiiraan juqraafi ahaan waxa uu dhaca bartamaha dalka Soomaaliya waxa uu xuduud la leeyahay dhinaca bari ilaa waqooyi gobolka Galgaduud dhinaca galbeedka waxa uu xuduud la leeyahay gobolka Bakool dhanka koonfur galbeed waxa uu xuduud la leeyahay gobolka Baay sidoo kale koonfur waxa uu xuduud la leeyahay gobolka Shabeellada Hoose iyo dhanka kale koonfur bareeyadana waxa uu xuduud la leeyahay gobolka Shabeellada Dhexe sida uu ku baxay magaca Hiiraan ereyga Hiiraan waa erey Soomaaliyeed oo isticmaalaan beeralayda ama dadka fashaco taabada beeraha waxaana ay ula jeedaan miraha ku haray ama looga tagay dalagga marka la goosto dalagii ku yaal beerta haddaba gobolka Hiiraan wuxuu magacan ku mutaystay sida hore idin kugu sheegnay marka aan ka hadlaynay taariikhda gobolka Hiiraan waxaan ku sheegnay in taariikhaynadu ay ku cadeeyeen buugaagtooda taariikheed in gobolka Hiiraan ay fariisan u ahayd boqortooyadii Makane oo taliskeedu gaaraya ilaa qaybo badan oo kamid ah DDSI waxaanu la jeedo dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya boqortooyadaasi Makane dhaqaalaha ugu badan waxa uu ku xirnaa beeraha 5% halka 5% ay ku xirneed xoolaha iyo farsamooyinka kale sida samaynta qalabka dagaalka samaynta agabka lagu seexdo sida darmaha dambiilaha masafyada iyo samaynta dharka iyo waxyaabaha bani aadamka waqtiga jir u adeegsan jireen si ay noloshooda ugu maareeyaan waxa jirta ilaa hadda tuulo leh magaca Hiiraan tuuladaasi waxaana loo sheegay inay ahayd bartii ay deganayeen beeralayda ugu tacabka wanaagsan ugu deeqsinimada badan ee boqortooyada Makane waxaana u soo ganacsatay jireen deegaankaasi Soomaali oo idil oo ka socota waqooyi iyo koonfurba sidoo kale waxa deegaankaasi Makane imaan jireen xilliga goosashada dalagga reer miyiga u dhawaad deegaankaasi kuna hoos noolaayeen boqortooyada Makane waxaana lagu quudin jiray hiiraamaysiga beeraha boqortooyada Makane maadaama ay ahaayeen masaakiin xoolo dhaqataa ku hoos nool boqortooyada sidoo kale hiiraamaysigaas waxa kale oo uu imaan jiray Soomaali kasta oo abaar soo qabato oo waxay ku barbixi jireen hiiraamaysiga beeraha boqortooyada Makane sidaas ayuu ku mutaystay deegaankii Makane magaca Hiiraan maadaama qof kasta oo Soomaali ah markuu yimaado deegaankaas Makane uu hiiraamaysan jiray marka ay dadkaasi u noqdaan baadiyihii beledka ay ka yimaadeen waxa ay ku dhihi jireen marka la weydiiyo oo la yiraahdo halkeed ka timaadeen oo badarka la idin ka soo siiyay waxa ay ku dhihi jireen waxa ka imaanay hiiraamaysiga Makane sida ayuu ku baxay magaca Hiiraan qarniyo ka hor inta uusan gumeysiga Afrika soo gaarin